idinaya wixii qabateen sida hawlaha ka baxsan ciidanka qaranka ee qaranku leeyahay ka qayb qaadateen abaaruhu ka mid yihiin waxaan bogaadinayaa saraakiisha soo noqotay ciidanka soo qaatay tababarada loo baahnaa ee aqoonta sare ah waxaan ciidanka ku wargelinayaa in taliyihii soo gudbiyey dhammaan ciidan weynaha wixii ay u gaadhay in darajo la siiyo oo la dalacsiiyo iyaguna dhaqsaan insha allahu u soo saari doona haddii alla yidhaahdo waxaan idinku bogaadinayaa dee ciidanka uu ballaadhay ciidamo la qarameeyey dugsiyo badan oo jirin baa la furay marka inaynu xaalad kasta uun u diyaar garowno ayaa muhiima xaaladda siyaasi ee gobolku maalin walba waxbaa kusoo kordhaya somaliland guud ahaan waa dal nabadeed oo ku caanbaxay ilaa 1990 inay ka duwaneyd qeybaha kale soomaalida oo dal madax bannaan oo arrimihiisa ka shaqeynaya oo ku suntan nabad iyo horumar horumarka la gaadhay ciidanku waa ka mid horumarku sameeyey taa macnaheedu ma aha somaliland isdifaaci mayso somaliland waxay u diyaar tahay inay qarankeeda difaacdo difaaca koowaad ee la doonayo sida dastuurku qorayo gardarro kaga timaado dalka dibaddiisa ciidamada qarankaa ka jawaabaya markaa saacad kasta taa diyaar baynu u ahaanaynaa haddii alla yidhaahdo inooguma jirto qorshaha horena ugumay jirin somaliland inay cid ku duusho laakiin waxaanu xasuusinaynaa cid kastoo isku dayda in somaliland kusoo xadgudubto ama ku gefto ama ku gardarooto inaanu guryahooda ugu tegi doonno haddii alla yidhaahdo waxaanu doonaynaa ciidankii in la casriyeeyo la tiro koobo oo tiro koobkii u dhammaaday in noloshooda wax laga bedelo qorshaha kale marka laga tago mushaahara kordhintii aan samaynay waxaa noogu jira qorshaha in guryo loo dhiso ciidanka siaanu ballan qaadnay insha allahu waxaan rajayneynaa inaanu guryihii ugu horreynina aanu bilowno haddii alla yidhaahdo ciidanka sidaa uu taliyuhuna sheegay annaguna aanu qorshaynay waxaanu doonaynaa in caafimaadkiisana la hagaajiyo awooddu inoo saamixi mayso inaynu mar qura wax wada qabanno laakiin in ciidanku dhakhtar helo oo caafimaad helo waxay noo tahay mudnaanta koowaad baahiya ciidanku way badan yihiin sida baahiyaa kale qarankaba laakiin waxay xukuumaddu diyaar u tahay anna anigoo madaxweyneah taliyihii ciidankaana diyaar u ahay inay ciidanku ii leeyihin mudnaanta koowaad haddii aan la yidhaahdo kulamo gaara ayaynu yeelan doonaa arrimaha qaarkood mar labaad waan salaamayaa ciidan weynaha meel kastay joogaan iyo qoysaskoodaba